Soomaaliya waxay tiraahdaa sadaqadu gurigaaga ka bilaabata muqdisho ka jirtaa tan xamar bay ka jirtaa dhexdeeda hargeysa dhexdeeda ka jirtaa garowe dhexdeeda ka jirtaa gaalkacyo dhexdeeda ka jirtaa Jabuuti dhexdeeda tigtiga dhexdeeda waxan iyo wax ka daran lagu sameeynaya oo TikTok la wareejinaya maxaa inaan Tukri iyo America iyo Aasiya iyo Afrika joogta shishadeeda maxaa aynu bal u haysanaa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabta qaaliga lahantiin meel kasta adduunka ka joogta waxa la soo dhawaada walaalka wardaadan halkan naga soo bartan kullanaha YouTube-ka ariirti waxaan ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saarto haddii aad nagu cusub tahay haddii aad hore noola sii joogtay oo aad kamid tahay asxaabta ku xidhan bartaan aan ka wada soconaya YouTube waxaan ka codsanaynaa ama baan kaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga ee aad nasiisay sidoo kale haddii aad ku cusub tahay waxaan kullanahay soo dhawow muuqaalka waxaan ka codsanaynaa like gareyso oo aad share gareyso oo aad la wadaagto asxaabtaada fikirkaaga iyo aragtidaada isku dayna xag hoose aan ugu reebto dabcan muuqaalkayga ciwaankiisa wad aragteen waxaan rabaa inaynu bal insha Allah Ilaahay yiraahdo isu taagno xaaladda baraha bulshada waliba hablaha Soomaaliyeed ee aaladda TikTok isticmaala iyo dhaqanada aadka u qalafsan aadka u foosho xun ee ay markaasi ku soo bandhigaan runtii waa wax isweydiin mudan oo wax runtii in wax laga iraahdo mudan runtii marka waxa jeclaystay bulshooyinka Soomaaliyeed ayaa ilaa shalay ilaa maanta waxay qaylo afka ka furteen inaan Tukri timi oo runtii jalaato ama meel ice cream lagu iibinayo ka ciyaaraysa ama ka niikinaysa tasawuf qanaan in Suuriyan ah oo runtii dalkaasi Tukriga gaar ahaan Istanbul ganacsigiisa ku socodsiiya heeso iyo in la niikiyo habla Soomaaliyeed oo kariyaatay manikiyan oo wixii halka imaada waxa uu ka codsadaa in intuu muisi ama hees uu u shido uu ugu talagalay meheradiisa muuqaal uu ka duubo oo isagoo runtii madadaalo dadkaasi ku soo jiidanaya oo madadaaladaas iyo dadkaas heesaya ama ciyaaraya runtii kadibna ay ka dalbadaan ice cream ama jalaato laba midba waan leeyahay hablaha halkaasi jooga aniga hablaha kale waxba igama gelin hablaha Soomaaliyeed ayaa runtii khuseeya oo hablaha Soomaaliyeed ayaa dad walaalayaday ah dad dhiig iyo dhaqan iyo diinimada midaysay ah dadkaasan anigu rabaa inaan wax u sheego sidoo kale waxaan doonayaa hablaha iyaguna sidoo kale TikTok jooga ee jalaato na aan ku niikinayn intay isku soo galaan bariyaha ama dabada ruuxaya inaan iyagana halka iraahdo inantan TikTok ay dhex niikinaysay ee muuqaalkeedu adduun weynaha qabsaday waxa ka daran oo ka saameyn xun habla kale oo iyagu runtii Muqdisho iyo meelaha kale ee Soomaalidu degto oo Hargeysa lafteeda aan jooga kamid ah in ay iyagu oo niikinaya iyagu dabada ruuxaya iyagu meel walba ruuxaya inay TikTok soo dhex galaan cid waxba kama tiraahdo ma aha difaacayo inantaasi ninka cadaanka ah ama ninkaas shisheeye la ciyaarsay difaacid aan difaacaya ma aha inantaasi muuqaal ama qoraal ay soo qortay waxa ay ku baahaysay inay tahay inan deegaan ahaan iyo dhalasho ahaan ku nool dalka Canada gaar ahaan Toronto caasimadda dalka Canada ay ka timi Tukri waxa uu timi inay dalxiis iyo wax la mid ah u timaado inantaasi ayaa waxa soo jiitay oo runtii lagu qanciyay in runtii ay ciyaarto iyadoo oo dharka ay xiran tahay uu yahay dhar cawradeeda ama jirkeeda aad u muujinaya halka xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ayba muuqdaanba ma garateen anyway inantaasi youtubero siyaasiyiin culimo dad yow aad u tiro badan ayaa ka soo hadlay san wada ogsoonahay Soomaalidu waxay aaminsan tahay 100% in Soomaaliyeed hadii ay nisheeyay video la soo duubto ama base ay ficil la samayso inantaasi ay aad u dhagan horto waa dhaqankeena taas ma dhaqankeena weeyii laakiin hadii in Soomaaliya la ciyaaro la nikiyo wax walba la isku sameeyo la isku nukado oo afka xitaa la iska dhuuqo big deal xagooga wax weyn maaha xagooga wax weyn kama aha inantan way khaldantay ilaahay baa ma khaldama malaa'igna ma qofku khaldami kara laakiin qofka haduu khaldamo hadii aad ku qanciso inuu khaldamay oo aad u sheegto oo aad garawsiiso inuu ficilkan ama waxan ay sameysay wax khalad ah yahay diiniyan iyo dhaqaniyan iyo nafsiyan waana iyada u fiicnayn qofkaasi waliba si wanaag oo sulux aad wax ugu sheegto qofka waxa laga yaabaa inuu wax ka qaato laakiin hadaan soo fariisto oo yiraahdo hooyadeed baa dhaqan xumada bartay abeed baa dhaqan xumada baray ee walaaladeed baa dhaqan xumada iyo wax walba yaqaan
inantaasi maxaad u malaynaysaa inay waanada kaa qaadanayso naba kaama qaadanayso wallahi kaama qaadayso bilaahi kaama qaadayso laakiin haddii aan si sulux oo wanaaga wax ugu sheego oo yiraahdo walaal waxaas kuma fiicna waxaa ka dheerow wad ogsoon tahay in maanta sumcadaada iyo sharaftaada iyo dhibaato ama dhaawac soo gaadhay ku caaymayo ku aflagaadin maayo haddii aad wax iga qaado aan idhaahdo waxa laga yaabaa inay dhanka wanaaga wax ka eegto oo tirada wallahi waa ruti hebel run buu sheegaya heblaay run bay ku sheegaysaa waxaan oo kale xitaa ka toobadkeen bulshooyinka Soomaaliyeed iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba dambi dhaaf weydiiso bulshadiina waan khaldamay Ilaahay ma khaldamay inta soo fadhiisto muuqaal dhay walaal waan khaldamay iga raalahaada dadku way ka qaadanayaan qofka khaladka ma dhibaatada uu ku dhacay khaladkiisa ogsoon ee garwaaqsada qofkaasi waa shakhsiyadka ugu qiimaha badan leh diiniyan iyo dhaqaniyan ba Soomaaliya hadaynu nahay ma garatay laakiin haddii aynu caayno aflagaadino shino culayo kala wanarkay reaction buu ka bixiyay chess u badan ku tilmaamayay in jalaato darteed ay u nikisay in boqo la yiraahdo mukhtaar miyo hadaaci mukhtaar baan maleynaya inuu la yiraahdo TikTok isna ku jira in isna uu aad ugu dhagnaa oo uu ku tilmaamay in ay u nikiday ama ay u ciyaartay jalaato qiimaheedu ka yar yahay $2 ama $1 ama 0.5 uu yahay wax ka yar u ciyaarto u nikisay jirkeeda iyo cawradeeda dibadda u keentayna waan arkay marka culimadii ama dadkii wanaaga sameynayay ee lagu tilmaamayay oo lagu tirinay inay yihiin dad diinta islaamka wax badan ka fahansan ayaa sidaa u dhaqmaya oo sidaa dadkeeni wax ugu sheegaya balka aan cilmi lahayn ee aan aqli lahayn ka kaxeeyana ka warama sidee wuxuu ugu tilmaamay uu caayo waa flagaadeenaya ka teleefankeeda hayana 100,000 oo ay buu qorayaa runtaan isku sheegnay marka inay khaldantay cid isku madiidana laakiin inta Soomaali ee ka daba khaldantay ee aflagaadeeyay ee dhibaateeyay ee caayay ee hooyadeed iyo family-gooda wax ku sheegay ee ku tilmaamay dad aan dhaqan lahayn ayaa ciida ka badan islaana waxba ku galabsan aaba aan waxba galabsan walaal aan waxba galabsan inaad caaydo oo aad ku tilmaamto shakhsi aad u liita oo aan akhlaaq iyo asluub iyo edebta suuban aan ubadkeedii baran hooyo ku taabtay dad ku tilmaamto adiga laftaada dambi ku jira marka hablaha Soomaaliyeed TikTok ku jira ciidaasi ka badan yihiin anigu waxaan leeyahay inta dalka inala joogta ee dhaqan xumada horseeda ee aynu wada ogsoonahay inay wax walba ku sameeyaan xeebaha Soomaalidu ay deegaan ahaan u leeyihiin haddii ay Muqdisho xeebta liida noqoto haddii ay xeebta Berbera noqoto haddii ay Lasqaro noqoto haddii ay Boosaaso noqoto haddii ay Taseylaan noqoto ciidaasi ka badan yihiin oo magaalada dhexdooda wax walba ku sameeyaan waynu daawanaa keep going baynu niraahnaa haddii aynu kuwa runta u sheegi weyno inantan waxaad ku haysataa waa khalad weeye ciida inta ka badan in ka darteed social media loogu bartay daanu hal iyo laba ma tirin karay maalin walba inta live soo galaan waliba aad ugu dartay gift iyo lacag oo ay rag ugu daraan oo ay dumarka qaar ugu daraan oo ay waliba amaan iyo wanaag aan lahayn ku tilmaama hidaasi ka badan yihiin ma hadal dhabi karo tamlanka iyo ciwaanka waad ku aragtay inta halka aad ku aragteen baba qof wanaag wada Ilaahay baan idinku dhashay qof kale wanaag buu wada oo qofkaas wanaag u horseeday waa kuma huwi waa keedi aniga ay tilmaamo waa tuma runta aan soo sheegay inantan waxa lagu haystaa oo lagu caayaya waa inta ninkaas Syrianka ah ee aan Soomaaliga ahayn ay la ciyaartay haddii nin kale oo Soomaaliya ay la ciyaar lahayd waxa la oran lahaa walaalkeed bal ciyaarsan Soomaaliya la ciyaarsan ma beentayda taas waa wayna ognahay in khaldantay wayna ognahay in dambi ku dhacday wayna ognahay in dhaqanka Soomaalida iyo dhaqanka diinta Islaamka suuban aan waxaan ina farahayn laakiin diinteenu waa nasteexo dhaqankeenu soo kala waa nasteexo dhaqankeena ha ka dhigina dhaqanka kan oo si jawaabsan dadka wax ugu sheegay ha ugu sheegina laakiin haddii aan maanta caytam iyo aflagaadaan halka soo fadhiisto waxaan doonana ka sheego dad baa dhalay dad baa ku tabcay dad baa waxay doonaan runtii hiili hooba la garab taagan haddii ay nikisa iyo haddii ay ciyaartay haddii ay dabada rabtaba ma garatay marka inagu bal aynu ka waantoono intaynan tukri tagin oo aynan Mareykan dadka jooga wax ku tilmaamin oo aynan kuwa Sweden jooga wax ka sheegin kuwa America jooga kuwa Europe jooga kuwa Asia jooga inayna wax ka sheegin
intaynaan wax ka sheegin aynu bal kuweena Soomaaliya dhexdeeda inala jooga ee Muqdisho inala jooga ee Boosaaso inala jooga ee Garowe inala jooga ee Hargeysa inala jooga bal aynu wax ka qabano ama Soomaaliya waxay tiraahdaa sadaqadu gurigaaga ka bilaabata Muqdisho ka jirtaa tan xamar bay ka jirtaa dhexdeeda Hargeysa dhexdeeda ka jirtaa Garowe dhexdeeda ka jirtaa gaalkacyo dhexdeeda ka jirtaa Jabuuti dhexdeeda Tigtiga dhexdeeda waxan iyo wax ka daran lagu sameeynaya oo TikTok lagu la wareejinaya maxaa inaan Tuqri iyo America iyo Aasiya iyo Afrika joogta shishadeeda maxaa aynu bal u haysanaa aad baan uga xumahay war muuqaalka la gareeya oo share gareeyo la wadaaga asxaabtina waxaan kaga tagayaa ilaahay xaqayna waafajiyo intaynu wanaaga iyo hadalka wanaagsan ee sadaqada aynu walaasheen wax u sheegi karo nimarkiina wax u sheegi karo aynu u sheegnay way noqon weydii aynu ka aamus war aad baan mahadsantahay